hooyato xubey maxamuud dhiciso 10 sano ka hor ayay isaga soo carartay shabeellada dhexe duruufihii abaareed ee xilligaasi dilaacay darteed waxayna deegaansatay beertii daraawiishta hadda sawaakaamka sayidka maadaama ay kaabiga ku haysa taaladii halgamaa sayid maxamed cabdulla xasan waa hooyo waana udubdhaxaadka reerka waxay dhabarka u ridatay mas'uuliyaddii qoyska oo dhan karinta shaaha iyo iibinta caanaha ay ku maareynaysa nolosha qoyskeeda 25 bishan ayay geeriyootay kaliya iyada ma aha waxa la baxay wiilkeeda Siid Cali Xasan Gaab waxa isla mashaqadan ay sabab u noqotay dhaawaca aaba Xasan Gaab Jareere gabadhiisa Maa'ido iyo wiil ay gabadhoodu dhashay oo reerka la koray waa qoys dhan aaba Xasan kulankiisa waa ay inoo ogolaadeen adeegayaasha ku howlan caafimaadkiisa laakiin dadnimada ayaa nafartay inaan Allah u caafimaad weydiino Maa'ido halista ay ku jirta darteed uma gudbi karna halka lagu dabiibayo waana xaalad ka culustan aaba uu ku jiro oo iyadaba ay nagu cuslaad inaan idin la wadaagno Cabdullaahi Xasan Gaab waa da'da ka yar Siid Cali waxa uu ka soo safray tuulo ka mid ah Shabeellada Dhexe si uu kaga qayb galo aaska walaalkiis hooyadiis Xubey sidoo kale inuu helaysan ka warhayn u noqdo aabihiis walaashiis iyo wiilka uu abtiga u yahay mana awoodo inuu noo jawaab celiyo god carhoos ka yar jirta hooyo تعالى وسيم عرض وستير وجراسين حلو جدا يا قردنا لودي هذا ماشي سجوتي لنا ماضي ويسخر حيالي وشيء حاجي ماضي ساك صلاة الصبح أصوب شوي Faarax Xasan Gaab waxa uu nala hadlayaa isaga oo walaalkiis iyo hooyadiis ku soo hobsada taakooyinkii dhulkan ay ku lahaayeen qabri waxa uu sidoo kale isku qancinayaa in walaashiis iyo aabihiis oo lagu kala dabiibay laba xarumood oo midba xilli booqdo waxaan weydiinay sida ay wax u dhaceen wax ku dhaceen hooyaday iyo aabahay iyo saddex cunug ayaa meesha wax ku naqad aabahay iyo hooyo walaalkay iyo hooyaday waa dhinteen Allah u naxariisto aan leenahay ilaahay kuma darnaado waxaan kaloo leenahay aabahay walaashay wiil walaashay dhashay saddex qofna dhaawac culus waay isbitaalada magaalada Muqdisho yeelay masaakiinana ay wada shay kari jirtay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsaynaa marka in loo kaalmeeyo oo muslimiinta ilaahay hooyo tabiix muddo baa la yiraahdaa si weyn sayidka looga yaqaan hooyaday xaaladdu ma sey maray عباد سوية حل عباد حالديس هذا كسر دراسة عاد كان دركن بدل ربا ونقا عباد حالديس سوى علوسته من هذا الكريم متيكر من راكنا عباد متيكرتين أدي الله أقلاده هالقفا الله أقلا ساعد بهالقفا الله أقلاده awood ma jirto uu kaga jawaab celin karo weydiimaheena waxaan badan dareemayna saddex qof inay isbitaal ka taalo oo dhaawac culus lama qofoodna dhimato waa dareemi kartaa hooyadiis ku jirto markan raganimada rabcad lagama helaa riigcada lagu baxshaa marka waa adkaysay weynaa rogana ka gariirna asigtimo marka ummadda Soomaaliyeed wixii muslimiina han caawiyaan inta wax noo qaban karto warka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hooyato Xubey daris la jecel yahay ayay u ahayd kaamkan waxaan darisnaa 12 sano 12 sano isla deganna oo isku weelna الحمد شكرا بالعالمين إله ونحريست جنة الله سيئ محمداس درسني ماذا هذا هو أكسنات إلهي بقيامك السينا أيو أدونك وأنكو جعلا الله كوينا أخرى الله كجعلا محمد آبيه واحد دي لقرح كدع جوهر وصاحب كدوي سيد علي قلاسك عيار عروراتك يكوه لنجري وقرسينها جيردا الله أيو ويدي نحريس زلاين أنا فضلك عال لباد اسم حوار لباد محمود شوف صلاة مركز سواحد كلش كبنون ليلة بنون الليل الله ونحرسته تعالي تعالي ولد الله ونحرسته بس كانوا خصوصا قوم جعلنا لا صنخك dadka kale ee dhibaatadu gaarto waxa kamid ah hooyo Xaawo Maxamuud Warsame Xaawo Qorgaab والله أنا قصدي واحد دعين كل يدانيجا مركز وحماش وحكم فلين وحما في فيرين النقطة لكن أنا جاي نص على الشقة كإيمت ماشى أبتكان علي وفضية يا ماشى كل سلامة سيتم في عنتنا طرفنا قبل ماشى كنت تقولي ذا قصة قطع عن ساس وهستي سانتي مركز أنا ورك دمستير لقاق سدها يا ود محل خيط عن ساس سدها أنا جبتها مقاد
fartuun cabdulla xasan maalmo kadib ayay allah ka rajaynaysaa inuu kala keeno waana sidkeedii ugu horreeyey laakiin madaxa ayaa firir kaga jiraa wayna u diideen bahda caafimaadka in xilligan qalliin la geliyo sababa la xiriira uurkeeda qarax markuu jawda waxa halkaas iga dhac bir camal ma qar in laygu dhifto camal naya ka yartay furahaan dhaawacanahay war ay qabta wiilay agtaagnay wiilkii ay qabtay markuu arkay dhiiga ka socday dhaah dhiigiyaa la igu xiriyay way wadi istaan ugu Soomaaliya waana la geeyay wayna meesha la iga xiray dhinacay firirka mala bixin kara dheer qof uur leh aadahay laga saari karo meesha isaga juraya markii dhashidii markaas kadib leeyahay hada alxamdulillah daawooyin qalajiye ay soo qoreen waa roonahay laakiin xanuun meesha uu ku jiro xanuun ka dareema email kale geeska oo maskaxda iga jira laba meel aadan maxamuud xuseen waa arday jaamacadeed waxa uu ku jiraa sanadkii 3aad ee waxbarashada waa dhaawac kama dahsoona cidda dhibaatada u geysatay gacan naga xaq daran un baan dishay sama meel u raacan mara gacan naga xaq daran ummad salaamka si loo luqmaayna aragtaan waxa waaye famil meel joogo iska jeefo iska hergalayo aykoon waxaas dhan nolol farxad saa ku soo kacay maanta dhan ku jiifeen haddana daqiiqad ka bacay mudug gale wax ka xun mara ay dood ma shaqo ما يدور مش wax ugu diraado waxa ku gaaray nafsa ma taqaan maanta waxa la hayo malahan saraakiil baa la dilay dawladda dadka tirsan baaba'ay noocaas baa saas noqday dad kale malaha waxa la gumaaday waa shacabka ولكن الشعب مش دقنا والله جريين هرتودي أهين ما نقول الله قبل أنا ندعو عفوا إن شاء الله qofna ma awoodo inuu ka jawaabo sababta ay wax u noqdeen isahligihiina ma oga sababta uu beegsada dad shacab ah oo weliba danyar ah laakiin kooxda ka been sheegtay diinta ee al-shabaab ayaa ku faanay in ay laayeen saraakiil ka tirsan dawladda sida ay ku baahiyeen baraha xiriirka kooxda u qaabilsan dacayaadka raqiiska ah dadka halkan ku dhaawacmay waxaa ka mid ah xawa maxamuud warsame fartuun cabdulla xasan abshir aadan dhoore aadan maxamuud xuseen xasan gaab jareere maayda xasan gaab jareere إبراهيم علي أحمد لبان أسمان محمد ظاهر عمر شيتي سجال قفوت والدعوة لتكون ومديوان قشنا دولة الصومالية كما نترسنا عيدا مدينة لكن وادت كان الله نحرسته هو تحوي محمود دعسو ويا جيريوتي يقول كذا سيد علي حسن قاب جريري warbaahinta dawladda iyadoo ka duulaysa soo bandhigida raadka muuqda ayay la jir kula noqotay xanuunka haraadiga reerkan ay wajahayaan sidoo kale ilgaarana ku eegaysa dareenka dariska qoyskana la jeclaaday oo iyaga laftooda qaarkood dib gaartay halka ay wax ka dhaceen waxay xigsiin ahaan jirtaa degmada ganacsiga ee howlwadaag gudoomiyaha degmada Mustafa Cali Khayra ayaa si guud noogu sharaxaya qasaaraha ay diiwaan galiyeen oo sii kordhi kara marka loo fiiriyo agabka uu qaraxa ka kooban yahay oo ay ku jiraan biraha ku sii dhex jira kushineetooyinka waxaan u maleynayaa inaad tagteen meelihii dhibaatada oo aad soo aragteen wixii meeshii si wax u dhaceen iyo sidii wax u yaalaan markaan warbixin guud dhiibo dhibaatadii shalay meesha ka dhacday qasaarihii ka dhashay dhaawaca guud wuxuu ahaa 9 qofood 3 waa dhaawac culus oo xaaladooda waa serious maxaa la yiraahdaa dhaawaca kale oo fududne oo aan isleenahay ilaahay wuu ka kicin doonaa hadduu ilaahay ra insha Allah waa 6 dhimashadu ilaa hadda intaan hayno waa 3 qofood waaye ciidamada amniga ayaa u diiday argagixisada dhigista gawaarida qaraxyada weerarada meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee ganacsiga ah laakiin gudoomiye Mustafa waxa uu jawaab u waayay sida ay u qorsheeyeen maleeshiyada al-shabaab leynta dadka weliba kuwooda ugu sii nugul runtii waxaan rabaa inaan ammaan ballaaran u soo jeediyo hay'adaha ammaanka oo dadaalay gaarsiiyay marxaladii ugu dambeysay oo nafla caarnimadii ahayd in inta qof isa soo xiro asagoo lugeenay imaado dad shacab ah isku dhex qarxiyo marka aniga ma garan karo runtii ulujeedka iyo waxa uu ka dan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan baaq u soo jeediyo shacabka Soomaaliyeed aan ku iraahdo wad u jeedaan haddii shala gaalo iyo wax daran ay mataqaana ay dhahayeen oo la gumaaday
maanta shacabkii qof walba indheer garad hadday noqoto aqoon-yahan hadday noqoto wadaado hadday noqoto maxaa la yiraahdaa dhaqaatiir qof la kala reebaa inaysan jirin loo istaago cadowgan loo istaago maxaa la yiraahdaa gacan aan iskaga qabanno cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho